صلاة الضحى فضائل بدن bay leedahay waxyaaba fadliga u yeelayna waxaa ka mid ah أنها صلاة تصلى في وقت غفلة في حين غفلة من الناس waqtiga salaada la tukanayo waa waqti dadka badankoodu aanay cibaado u jeedin bal inagaba dee xaalkeena eg mid waxbarasho ku maqan mid macallin oo wax dhigaya mid ganacsanaya mid xafiis fadhiya mid dowladeed ama mid waxa weeyaan shacab leeyihiin dadku hawlo adduunyay ku wada shababayin walihaada baa dadka tukada awaabiin lagu magacaabay dadka alla u noqoshada badan ilaahay in badan xusuusta marka bal insha allahu tacaala saddexda arrimood Abu Hurayra uu yidhi rasuulku uu ii dardaarmay inta nool ahayna ka tegi maayo bal cala laqal laba ma ku camal falaa hadduu soomku idinku adkaado sindheer baad u badantiini waqtiga cuntada loogu baahi badan iyo loogu jecel yahay bal labada kale ku dadaala ugu yaraa waqtigaa barqada haddaad iskuul dhiganayso haddaad jaamacad dhiganayso haddaad maxad dhiganayso waqtigaa barqada ee nus saacaha laba ragcadood iska tuko ragcata duxa salaatu duxa waxay ka ridaysaa sadaqada sunnaha ah ee maalin kasta waagu u bariyo xubnahaaga lagu leeyahay وقل رب زدني علما باب صلاة رسول الله الضحى هذا كان باب صلاة رسول الله الضحى رسولك إلهي تكشدي صلاة الضحى وتكنشري أيو بابيه صلاة الضحى وصلاة سنة صومالية وصلاة دي برقدة وحان صلاة وقت قيد وصوق قلاه إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح مرة يقول راح نصوب بحضو ورن قدر كي إن لك عدولك كقوضو كروغا كعضو يعني سو بحيتان كذا مركا 20 دقيقة ميلاها ثلث ساعة مرو كسوريو سورة الشيخ بن العثيمين إلى وقت الاستواء إلا يقرح السماء برتن كذا جانس لبدا وقت انت ودحيسو oo dhami waa waqtu li salaati duha oo rasuulku kaleey salaatu wasalaam labada waqti buu salaada diiday inta u dhaxaysana in la tukado ayuu dhiiri galiyay laakiin waxa salaadii barqada loo yeelaano waqtiga ugu fadli badan tahay oo waqtiga barqa kulusha ee nirgaha yaryar ee wali aanay lagu cagahoodu adkaanini ciidu markay kululaato ay ku raramoodaan ay ku gubtaan oo salaatu al-awaabiina xiina tarmudu al-fisaal buu nabigu kaleey salaatu salaada kuwa alla u noqoshada badan ee adooma ilaahay xusuusan yaani waqtigeeda ugu fadliga badani waa marka barqa kulusha ana 9 barka 10 subaxnimo qorraxdu ay barqa kulul ay noqoto marka salaada rasuulku inuu tukan jiray iyo balintu tukan jiray uu baabkan ku saabsay عن معاذة العدوية أنها سألت وحي ويديس عائشة رضي الله عنها كم كان ينتابوها رسول الله رسولك لا يصلي مت كذا صلاة الضحى امسى ركعات بصلاة الضحى تكنشر قالت وحي 4 ركعات 4 ركعات ويزيد ما شاء الله انت إلهي والدونين وزيادين شري خرجه مسلما الحديث كان وحي الماما يا رسولك عليه الصلاة والسلام هرت إنه تكنشري صلاة الضحى عائشة رضي الله عنها اختلف قولها في صلاة رسول الله في الضحى هذا الكيد واكل الدونادو واسخلافي مريكا والرميسي صلاة الضحى ورسولك إنه تكنشري ومر واحد تري ما رأيت رسول الله يصبح صبحة الضحى ولقي ما أرق رسولك وصلاة الضحى تكني مرنا واتن له كان يصلي 4 ويزيد ما شاء الله وإنه تكن جري يدو سعد وشيء مرنا واحد تري ما كان يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبه صلاة الضحى ما تكن جري وسفر كسوق قلم وياني مركز مو تكن جري taasi markaa waxa ay muujinaysaa rasuulku salaatu duxada tukashadeeda inaanu joogtayn jirin عائشة وحي ay aragtay ama ay ogaatay ayuun bay ka warantay salaadan markaa waa la joogtayn karaa waxaana u daliila xadiisu Abi Hurayra fi sahihayn
waxa uu yihi awsaanii khaliilii bihalaaثin wuxuu ii dardaarmay kii aan aadka u jeclaa oo nebi maxamed iyo 3 arrimood an asuuma 3 أيام min kuli shahri bil kasta inaan 3 maalmood ka soomo wa an usalliya rakcatayni fi الduxى 2 ragcadood waqtiga barqada inaan tukado wa an utira qabla an anaam inaan witri tukado yani ragcadi intay ugu yar tahay inta aanan seexan falaa adacuhuna xataa amuut buu ihi 3 arrimood ee rasuulku ii dardaarmay ka tegi maayo ilaa aan ka geeriyoonayo o aan ka dhimanayo marka macnaheedu waxa weeye rasuulku joogtaynta inuu u dardaarmay saasuu abu hureyre u fahmay marka waan joogtaynaya wey marka salaad duxaa dhibi kuma jiro in la joogteeyo tiradeeday culimadu ka hadlaan rakcataani baa u yar waa salaa nahaariya oo ragcad qura ma noqon karto witri ma noqon karto xadiidka abi hureyrena waa ku xusantay rakcatay duxa inta u badan salaadan ee nebiga ka ansaxday waa 8 ragcadood oo xadiidu ummi hani fi saxiixi muslim ku xusan yowma fatxi maka inuu rasuulku tukaday 8 ragcadood oo subxatu duxa sunnihii barqada xadiidkan caaishana waxaynu ka faa'idaysanaynaa inaanay xadba lahayn oo yaziidu maa shaa allah qofkii 8 tukanaya qofka 12 tukanaya kii 20 tukanaya asalaatu maftuuxatu wamashhuuda qofka way u furantay mar haddii waktigii nahyigee hore la dhaafo marka qoraxdu soo baxayso waktigii nahyigee labaad oo ah marka ay samada bartankeeda gaadho ee weli aanay xagga u dhacdan oo u iilan labada waqti inta udhexeeya salaaddu way furantay salli kamaa tashaa intaad doonta tuko salaatu duxaa fadaa'il badan bay leedahay waxyaaba fadliga u yeelayna waxaa ka mid ah annahaa salaatun tusallaa fii waqti gaflati fii xiini gaflati min annaas waqtiga salaadan la tukanayo waa waqti dadka badankoodu aanay cibaado u jeedin bal innagaba dee xaalkeena eg mid waxbarasho ku maqan mid macallin oo wax dhigaya mid ganacsanaya mid xafiis fadhiya mid dowladeed ama mid waxa weeyaan shacab leeyihiin dadku hawlo adduunyay ku wada shababayin walihaada baa dadka tukada awaabiin lagu magacaabay dadka alla u noqoshada badan ilahay in badan xusuusta qof ilaahay qalbigiisu aada ugu xidhay unbaa markaa xilligaas oo kale cibaadaysta walcibaadatu fii waqti gaflati الnaas afdalu min alcibaadati fii waqti yaqdati الnaas waqtigay cibaadadu dadka usoo jeedaan iyo waqtigay moogan yihiin wax kale ay ku mashquulsan yihiin waqtiga ay gafladaysan yihin bay cibaadadu ku fadli badantay walihaada baa rasuulku markii la weydiiyey soomkan shacbaan xadiidka usaama ibnu zayd ee imaamu axmed uu wariyey maa ra'aytuka tasuumu shahra akthara mima tasuum fii shacbaan bilaad shacbaan ka soom badsatay ma arage yani soom sunnaha sirta ku jirta waa maxay rasuulku wuxu uhi daka shahru yakfulu canhu nnaas waa bilay dadku moogan yihiinoo rajab oo ashhurulxurumka ka mid ah iyo rabadaan ayay bishaasi udhaxaysa marka labadaa biloodee dee fadliga le dadku kaga mashquulaan marka waxaan doonaya waqtigaa dadku ay kafladaysan yihiin inaan soom ilaahay subxana wa tacaala aan ku caabudo salaatu duxa waxay kaa ridaysaa sadaqada sunnaha ah ee maalin kastoo waagu uu bariyo xubnahaaga lagu leeyahy oo rasuulku wuxuu yihi yusbixu calى kuli sulaama min الnaas sadaqa maalin kastoo waagu bariyo qofka bani aadamka xubnihiisa sadaqa markaa ayaa laga rabaa waa sunna sadaqadaas sadaqada markaa inaanay xoolo la bixiyunahayn buu rasuulku sheegay yacnaa inaad ilaahay xusto waa sadaqo inaad wanaag fartaa waa sadaqo inaad qof caawisaa waa sadaqo wayujziu can dalika rakcat duxaa buri rasuulku sadaqooyinkaas oo dhan waxaa kaaga filan xubnahaaga 360 kaa lagu leeyahy 2 ragcadood aad tukato waqtiga barqada markaa fadligaa weyn bay leeyihiin 2 ragcadood labadu waa inta u yare ee waqtiga barqada la tukado marka bal insha allahu tacaala 3 arrimood ee abu hureyre uu yidhi rasuulku wuu ii dardaarmay inta nool ahayna ka tegi maayo bal cala alaqal 2 ma ku camal falaa
hadduu soomku idinku adkaado sindheer baad u badantiini waktiga cuntada loogu baahi badanya loogu jecel yahay bal labada kale ku dadaala ugu yaraa waktigaa barqada haddaad iskuul dhiganayso, haddaad jaamacad dhiganayso, haddaad maxad dhiganayso, waktigaa barqada ee nus saacaha 2 ragcadood iska tuko ragcata duxa ah. habeenkiina markaad salaada cishaa'i tukato haddaad naftaada ku kalsoontahay inaad waaga hortii kacayso waktigaa inaad dib ugu dhigataa kuu fiican. laakiin haddii kale waana see dhalinyaratu u badan yihiin ragcad ama 3 ragcadood, 2 ragcadood ee sunnaha cishaa'iga markaad tukato ragcad ama 3 ragcadood oo witriya raaci dee waa salaatuleyl. nin salaatuleyl tukaday baa tahay soo moogi salaatuleylku ta loo soo tooso un maaha, taa fudud ee cishaa'i dabadeed la tukanaya lafteedu waa maxay? waa salaatuleyl. ta loo soo toosaya hadday kugu adkaato dee taasi ma adka. marka labada arrimood ma samaynaa ya war yaa diyaar u ah labadaas? anna waa idinku jiraan salaatu duxa iyo witriga oo ragcad ay ugu yar tahay 3 5 inaad joogteen karaysa adigu oo hadhow inaad cibaadada joojiso aan sabab kugu noqonahay. bal insha allah inta aynu dabaqno biidn illahi tacaala. witriga caawa aynu ka bilaabayna. salaatu duxaana dee imika waa taaganta salaada duhuur inta ka horeysa o dhan waa la tukan karaa. ayib ya haddii ay hurda kula tagto ama isagu soo niga nidhi cishaay kadib baa tukado allah waxa u baahan ninka hurdo dabadeed tukanaya. hadday hurdadu la tagto ama u xanuunsado maalintii buu qallayn karaa. haddaad ragcad tukan jirtay maalintii 2 baad ka dhiga, 3 hadaad tukan jirtay 4 ka dhig, inta aad tukan jirtay xabad un ku dar si witrigu meesha uga baxo. wasalaatu nahaari mathna mathna